aniga dhinacayaga xagga dhaqaalaha laba arrimood oo waaweyn baa ku jira. mid waxa weeye arrintan isku socod la'aanta iyo xidhxidhka meel walba xidhan tahay maxay dhaqaalaha u geysatay ama u geysanaysaa 8 bilood ee soo socda ilaa sanadka aakhirkiisa maxay u geysanaysaa halkeense wax kabka raadin karnaa ilaa dawlad baan nahay oo dawladdii waa soconaysaa haddana dadkii waxaa la leeyahay xanuun baa idin hayay meel jooga waana ta ugu importansan weeyaan in dadku kala joogaan taasi markaa dhaqaalihii hoos bay u dhigaysaa intay hoos u dhigaysaa waa meel intay hoos u dhigto xaggeen ka doonaynaana waa meel kale la dawladda wayna socotaa. arrinta labaad madaxweyne waxa weeye khasaaraha ay keentay muxuu xanuunkani keenay ama lacagaha iyo kharashka loo baahan yahay la iskaga celiyo oo isaguna additional cost isagana xaggeen ka raadina ayaa iyaduna meesha ku jirta. arrinta saddexaad waxa weeye wasiir maareeye sheegay oo ah si aanay ascaartu u sara kicin maxaan samaynaa lianna wixii dalka soo gelayay baa yaraanaya laga yaabaa arrintuna waa iska supply and demand baa xukuma price-ka marka qofkii wax yar haystay hadduu og yahay inaan waxba soo gelayn inuu price sare u qaado inkastoo anigu aan arrintaa ka waaninaya dadku inay sameeyaan haddana way dhacaysaa waanay dhacday sideen taana wax uga qaban karnaa. saddexdaa arrimood baan doonayaa in mid walba is yardu taago anigoo ku dheeraanay. ka horeysa dhaqaalaha generalka dhaqaalaheenu halkan wuxuu inaga soo galaa waa laba meelood waa furdada iyo cashuuraha beriga labadiiba xoog bay u dhacayaan haddii la iskuba socon waayo oo meel la tegi waayo dadka kala joogsadaan waxay aad bay u dhacayaan. annagoo marka horeba dhaqaalaheenu kab u baahnaa oo kab ku jirnay budgetkeenu kab u baahnaa oo EU-da iyo World Bank iyo African Development Bank meelaha ka heli jiray haddana kabkii ka sii badan ayaynu u baahanaynaa. marka qiyaastii marka dalkoo dhan baan ka hadlaynaa ma federal government kaliya dalkoo dhan qiyaastii annagu waxaan qiyaasnay 245 milyan 8 bilood soo socda inay naga dhigmayaan oo aan loo geyn wixii hore kabkii hore ku jiray meesha aan loo geyn dalka oo dhanna ay taasi ka dhacayso federal government-ka ilaa 70 meelaha inay ka dhigmi doonto oo aan kabkii hore ku jirin kabkii hore nebi ku jirin xaggee laga doonayaaba markaa meesha ku jirta. mudane madaxweyne waxaan wada hadallo aad u qoto dheer kula jirnaa international community-ga gaar ahaan banka adduunka iyo IMF-ta oo IMF-ta shaqadeedu tahay inay nala eegto figures-kan inuu ka hadlay inay sax yihiin lianna way garanayaan wax walba meesha ka imanaya way garanayaan marka iyagu yidhaahdaan arrinta dhaytadaas aysan waa sax weeye dabeetana aan la baryo tagno ayay noqonaysaa taasaa markaa ugu yaraan weygii 2-3 jeer aan la kulanaa waana soo conclude garanaynaa haddii la yidhaahdo laga yaabo waxoo dhan inaan helin laakiin wax ku dhow in laga yaabo laga helo World Bank African Development Bank iyo EU-da in laga helo ayaan isku dayaynaa. ra-iisul wasaarena khayr allah siiya aad iyo aad buu ugu hawlan yahay arrinta iyadaa. marka taasi waa taa lacagii hoos bay u dhacayaan dakhligiina soo geli hoos buu dhacayaa sidii loo kabayay markaa iyadana in laga shaqadeeda yaa wadnaa. arrinta labaad waxa weeye markaa xanuunkan inoo yimi kos buu keenay diyaar umaynaan ahayn laakiin haddana at least minimum capacity inay yeelano ayaa loo baahan yahay in sariiro inagu filan ama wuxuun la sameeyo ayaa loo baahan yahay wasiiradda ka hadli doontaa qalabkii wax lagu baadhayay baa loo baahan yahay meeshii dadka lagu kaarantii garin lahaa baa loo baahan yahay yacni wax walo xanuunkani keenayba waanu baahannahay diyaar baynaan ahayn waxay caadigiiba baynaan diyaar uhayn marka hore marka ayadana bal hadda immediately waxaan u baahannahay halkii laga keeni lahaa ayaa iyadana shaqadeeda la galay lagu tala jirana in dib loo habeeyo. arrinta iyadaa markaa ilaa iyo 15 milyan baan is oranayaaba iminkaan gacanta ku hayno ilaa 15 milyan wax badan ma aha laakiin haddana waxay ku hagaagayaan waxyaalaha yaryar equipment-ka wax lagu taskareeyay
in meel walba laga sameeyo meel muxuu ahaa ICU yar laga sameeyo sariiraha in la kordhiyo meelaha karantiinka in la sameeyo waxoogaa yaro rehabilitation dhakhtar cusbitaalada loo sameeyo waxyaalahaas baa ma garanaysaa ay ku filaanayaan baan is leenahay 5 milyan marka horeba budgetka maalintii dhibaatada tumeedba budgetka ayaan ka soo garoocnay meel baan dhignay World Bank 7.5 million ayuu yidhi baan diyaar la nahay oo yaalla oo la isticmaali karaa maalin dhaweyd Islamic Development Bank iyagana waxay yidhahdeen 2.7 million ayaan ku deeqaynaa marka intooda badan waxa weeye qalab laydin soo yimid Islamic Bank oo kale wuxuu leeyahay qalabkiina arrimiina keena dabeetana jidaan idinka soo dirayna ama meel baa idinka soo dirayna taasa qalqaalaheeda aan ku jirnaa alaabta intooda badan waxa laga soo yeelinayaa Turkey waxaan u maleynayaa maanta ilaa berri in la keeni doono marka 15 milyan waxa uu heliyaa World Bank ilaa 40 milyan ayuu yidhi baan ku talagelaynaa inaan arrinta idin siino laakiin waa wax process-taasi u baahan aan immediately available ahayn waqti bay qaadanaysaa laakiin waa imanaysaa within the next 2 months haddii la yidhaahdo waa ay imanaysaa taasina waa taa weeye wixii qabanqaabo ah aan ku jirro marka lacag raadina waa ku jira African Development Bank isaga laftiisa waa la hadlaynaa waana hadalku ku jira iyaguna wax ku beeriyaan ayaga ADF koodii baa weli aan effective ahayn 2-3 week dabadeed baa la odhanayaa waa effective markaasaan dabeetana iyaga odhan doonaa waxa ku soo dara diyaarna uu yahay waa markaas ay idin sheegi doonaa diyaar now arrinta ascaarta sida Mareeyo u sheegay waan la kulannay ganacsatada waan la kulannay ra'iisul wasaaraha la kulmay anagu waan la kulannay technical people ka wada kulmay marka laba arrimood in la isku dheelitiro ayaan u baahnay idin waxa weeyaan in ascaarta halkooda lagu daayo oo iyadoo cashuurtii hoos loo dhigayo the other side-na waxay noqonaysaa markaa dee lacagtii soo gelaysay baa intii kasii yaraanaysa markaa baahi kaloo fara badan ayaad ma garanaysaa ayaad leedahay IMF-ka iyo World Bank iyo qolooyinkaasina waxba hoos loo dhigo adigoo sidii kale u baryay in hoos loo dhigo haddana aad uguma dhigan nugla laakiin waan ka dhaadhicinay baahida loo qabo inaan ascaartu isbedelin sidaa daraaddeed waxaan isla garanay bariiska iyo timirta ilaa 3 bilood soo socda in cashuurta laga daayo 100% laga daayo waxa kaloo isla garanay burka iyo saliidda in iyagana laga daayo cashuurta 50% afarta ay tan baa ugu xoog weyn marka ay waxa naga dakhliga naga soo gala iyo xataa waxa imanaya balka imanaya ugu xoog weyn intaasaan isla garanay waan isla eegi doonaa haddii wax kale loo baahdo in la sameeyo iyaduna waxay noqonaysaa wax laga wada hadlo dhinac walba laga eego ayay noqonaysaa marka tan waxay u baahan tahay warqadii waan qornay oo ready laga bilaabo bisha 15keeda baan isla garanay bishan iminkaan ku jiro 15keeda arbacada soo socday weeyaan mar malanaya arbacadan arbacadan weeye ayay ka bilaabmaysaa ilaa iyo 3 bilood baan idhi 3 bilood mise 4 bilood one of it 3 bilood inay taabaan waaya waa waqtiga la leeyahay way soo dhamaanaysaa ay hubinay soo dhamaatay ilaahay idinkii hadday soo dhamaawaydo kolba wixii la yeelo wixii loo baahan yahay uma yeeli doona inahaasaan ku soo gabagabeynayaa madaxweyne